الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين الله سبحانه وتعالى وهو كتاب كيس منزل ومحكم كآد وبيانيي nimanka gaalada ah ee cadowga islaamka ah xumaanta ay qabaan iyo sida ay u doonayaan muslimiinta inay dabar gooyaan waxuna rabbi noo sheegay subxaanahu wa ta'ala hadii aan gaalada tala yeelno oo waxa ay sheegayaan wax kamida aqbalno in ay gadaal noo celinayaan diinta islaamkana ay naga bixinayaan oo markaa ka gadaal noqon doono dad khasaaray oo musiibo ku dhacday allah hadduu qadaro subxaanahu wa ta'ala waxaan wax ka tilmaami doonaa duulaanka muslimiinta lagu soo qaaday ama ha noqoto xagga maskaxda ama ha noqoto xagga laynta si saaniya loo dhameeyay ayagoo arrintu marka ay daba taalo ay tahay in aan la xasuusiyo dadka qaasiliinta oo halmaansan madaabixda muslimiinta meelaha muslimiinta lagu gowracayo iyo sidii muslimiinta loo soo gowraci jiray in islaamkan dhibaato badan loo soo geyso la gowracay welina la gowracayo dadka gowracaya dadka ay yihiin iyo waxyaabaha ay adeegsadeen wax kamid ah sida aad la socotaan ama qof walba muslim og yahay laga soo bilaabo nabiga sallallahu alayhi wasallam maalintii la soo diray iyo ka hor ambiyadii ilaahay nabi kastoo la kamid ah markii la soo diraba cadowga diintu waxay isku dayi jireen inay dhibaatooyin badan geystaan oo ay nabiga asaga ah shakhsiyadiisa wax u dhibaan risaalada uu la yimidna wax u dhibaan تشويش بدن أي كفر أي دباتوين بدن لي نادين رسولك صلى الله عليه وسلم دقالك أي قالوا كسم هذي وهو كبر الله صدردي لقى صدري مكة ما ننسى أيضا يعني وحي اللي قد بالله من اللي جمد جوجين قالوا مركة أبوه الرئيس إسلامك وحيالها أي كسم هذي كرد قال أنت وحى أبوينا إن القرآن كإله تشويه قليان أو أي سكوك بيران أو اللي يرى القرآن ماذا أهان دقن حق ربي كيمد منا أهان كلام الله سبحانه وتعالى أرنك كان لي وحوي وإن كنتم في ريب مما نزلنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وها أن سود الجنة أو أن أظنك إن كد الجنة هذا الشك وقلت بنتهين أو أيضا صح إذن لا أهين أرضها بالأبين كلك عليا هل آيات أو وحا أولي من لمدأ هل صورة أو وحا أولي من لمدة لك عليا ويرت شهادتنا يكون مرغاتك إذين هداتهن دبرون شيئا أعوانتهن كالمهن كوة إلى يد العابدان إيا واحد كتير سنتين أو ننسى وعلا وحا لك عليا سيدا قرآن كأترجم أيوه وناقا وعبر أيوه وحوكلا شامبين أيوه وحوكلا شامبين أيوه سورة أرضها لك عليا الله وحو قرآن كويري سبحانه وتعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا هدانا سيدا هدانا سمين ما بسمين إيسان ما لقيا وإن السميدان وي ما ندعي كاري دونته فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدا للكافرين وحد كده ورسطان وديسك إلى لدان نار وحا اللو دياريي والله ضرب إلا قرد أي قالة إيهين دقاحرة نار تسأيدا وحا اللو دياريي لو تلقى قالة وحا اللو شدان وددك إيا دقحانتا معناها وحا اللو لجيدا وحا نار تلقى شدان dadka iyo waxa ay caabudaan haday hawadooda tahay haday qoryo la qoray tahay haday mabaadi ay wataan tahay innakum ma ta'buduna min duni Allah hasabu jahannama wa kala wayan naarta marka lagu leeyahay naarta waxa lagu shidaa shayga
dadka iyo dhagaxda lagu shidaa dhagaxda lagu shidaa waa tii la xaabuday ayaa lagu shidaa naarta weeyaan ka dhowrsado alla yiri subhanahu wa ta'ala ila quraankan oo kala ma sameeynayaan mana la imaan doontaan weeye halkaas waxa ka garatay dagaalka ugu horeeyo diintan lagu sameeyay waxa ahaa in la yiraahdo quraanku sax ma ahan wax aan la isku dayin malahan oo gaaladu isku dayin haddii ay quraanka sida aad sheegaysaan la samaysan karo ordaha soo samaysta la yiri luqada carabiga si fiican baad u taqaanaan odayaashii carbeed baatiin ordaha quraanka oo kala soo samaysta suurad oo lamida way u suura gali weyday marka waxa la yiri u hogaansama oo qaata macnahaas waxa weeyaan kolka bani aadamka maanta jooga waxay dacni iyo durid ka daylaayeen kitaabka rabbi iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam way ka daylaayeen haddaba quraanka hadii aad dacniseen oo aad duraysaan khaasatan kooxda la yiraahdo shuuciya iyo dimuqraadiya ama ha noqdeen iyo qowmiyoonta kulligooda idil haddaad dacni quraanka ka day weyseen sida quraanku wax u hagayo mabda wax u haga ordaha noo keena ma keeni kartaan mana keeni doontaan ee rabbigiin ka cabsada oo quraanka u hogaansana rabbigiin ka cabsada oo rasuulka ku dayda sallallahu alayhi wasallam wax kale oo dhaqan iyo nolol noqon karaana malahan illa quraanka ilaahay mooyaane meel kale oo lagu badbaadayaana ma jirto allah subhanahu wa ta'ala wuxuu kitaabkiisa ku yiri marka uu la hadlayo nimanka la yiraahdo quraysh iyo wixii la mid ah iyo dadka sidooda u hadlaya am yaquluna iftara'u qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istada'tum min duni allahi in kuntum sadiqin waxay ku dhawaaqayaan miya quraanka muhammad baa samaystay waaba la samaysan karaa sawmahan adinkuna soo samaysta wax alla waxaad kartaan oo dad ah oo ogon yahan ah oo odayaal ah oo shayaadiin ah oo sanam la caabuda kaalmaysta hadda run sheegaysaan ee wax oo la kaalaya quraanka u dhaw lamida illa mithli marka leeyahay waxa laga yaabaa in la yiraahdo macani waxba ka dhiman laakiin waa ka soo daba dhaweeyo wax on keensada ma keensan kartaan kitaabka ilaahay raaca weeyaan dadka bani aadamka ah mabda idin haga ma yeelan kartaan ee quraanka alla qaata sida uu yahay ugu socda nolol iyo dhaqan asaga ka dhigta waxyaalaha yaabka badan waxa kamida bani aadamka maanta jooga hadda halka inta istaagtid gabaydid oo aad yaani wax sheegtid oo aad dadka sixirtid kulligood way ku raacayaan laakiin haddii tira diin allah ka waramaya wax alla waxa meelaha taagan oo dhan waxay leeyihiin diinta anaga loola jeedo quraanka anaga la ku soo leexiyay quraanku 1412 sano koor buu soo degtay ku soo leexiyay waxa uu ka waramayo diidayo maxaa lagu adiga ku galiyay ma rabbi ka baqatay subhanahu wa ta'ala waxa laga doonayaa dadka inay noqdaan dad rabbi yaqaan oo diinta alla siday taag ugu socda oo xumaanta isaga taga taas ayaa la doonay laakiin mujrimiintu sidaa ma rabaan daa'iman waxay isku dayayaan inay afkooda wax ku baabi'iyaan adinkooda wax ku baabi'iyaan wax kale haday qabo waayaan inay wax dhaleeceeyaan markay arkeen in quraanki wax laga qaadi karin oo alla yiri in hada alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira quraanku waxa dadka ku hanuuniyaa dariiq la maro midka ugu toosnaanta badan leh wada lagu socdo midda ugu hagaaga badan leh wa aqwam xagga aqeedada dariiq midka ugu toosan xagga cibaadada dariiq midka ugu toosan xagga akhlaaqda iyo dhaqanka dariiq midka ugu toosnaan badan xagga mucaamalaadka iyo maamulka iyo siyaasadda dariiq midka ugu toosnaan badan ayuu quraanku wax ku hanuuniyaa allah wuxuu yiri kolka waxaad u bishaaraydaan nabiyow dadka amalkooda hagaajiyo quraanka ku dhaqmay inay ajri weyn alla agtiisa ku leeyihiin laakiin yaa cadaab ku dhacaya wa anna alladina la yu'minuna bil aakhirah a'tadna lahum cadaban kabira dadka aan aakhira rumaysnayn oo aan diintan ku dhaqmin cadaab weyn baa loo diyaariyay kuwaas iyo xiriir fara badan musiibo ayaa lagu salidayaa oo ilaahay qoorta u gelinaya subhanahu wa ta'ala markii quraanka inuu sidaa ay arkeen waxay dib yiraahdeen bal aan tashwiihino shakhsiyada nabiga sallallahu alayhi wasallam aan tashwiihino shakhsiyada nabiga waxay yiraahdeen allah tawakkal wuxuu yiri wa qalu ma li hada ar-rasul ya'kulu ad-da'am wa yamshi fi al-aswaq lawla unzila alayhi malak baru fi sadaladeeda warwa maxay midka rasuulka lagu sheegaya suuqyada ayuu sidii dadka soconaya cuntada ayuu cunaya ma malaku soo degto oo yulqa ilayhi kansul ma kayd loo soo rido oo yani intaas oo ka safarto loo keeno oo takuna lahu janna ma beera iyo asteentooy usugnaada oo wax ku qabsado haduuba nabi haba yani waxa la isku day hadana hadii quraanki waxba laga qabo way shakhsiyadiisa in lagu ciyaaro oo la yiraahdo shakhsiyada la tashwiihiyo rabbul izza subhanahu wa ta'ala wuu dafire waxa aad sheegaysan waxa ay sheegayaan wax ka jirin baa loo sheegay oo rasuulku bashar bani aadam yahay oo aan malag loo soo dirin
مرق هدي الله صدر لا إني سأفهمين جني إن الله صدرين أو واحد الله صدر بشر أيوة كمله ويبكي سجرنا ين ويسورة دي سجرنا ينو يحيي رب العزة سبحانه وتعالى وحل يسكد إن سوى البا تشوه الوجليو الله وحوي مركه سجوا دفاعية يا أيها النبي إن أرسل نبي وحقا قادرني من على هين دتك من أدوك الجنة ينار أصوات داريه دتك أديك كراعة واحد أقول بشارة إلى جنة الله ساسا قادرني ومد أديك كلابتنا عذاب الله أقدكته ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم أديك وحلقاه ويدين مايو ريرها نارتا الجحيم اللي يرى ريرها وحبل لقاه ويدين مايو شغاها أدوك كمالي وحتى جارسي ذاتك وحجارسي أما إن الحق قسم كوجلدنا مليه وح أي كليه ما ذهب الله صداريه ما كسفورتين لسيه ما بيرد ذهب ياسي شكل أصلا شكل يكوت على ما بالي شغلكم مليه حقا أوعد ذاتك إنما أنت يعني مركر أدوك وحتى مد يعني وحوانية من وحد بس سيدة رسولك اللي صلى الله عليه وسلم وحقل الدنيا إلا الدفاع شخصية ديسة هكذا واحد كجرتي قالوا waxay mudabbadan ku hawlanayeen inay isku dayaan inay tashuuh diinta galiyaan marka inaha ku guuleysan waayeen waxay tashuuh galiyeen sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam hay'adda la yiraahdo UNESCO waatay soo qortay yani fasalkeeda tobnaad buuga afar waxay ku qortay yani sunnada aad maqlaysaan oo xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu dhintay hadal la isku duwan waxba ka sugnayn weeye waatay sida ay u socdeen معلمينتي وحكبريسة جامعة الأزهر وقاهرة كتالة غاركود أي كسو قرين إيوان أي بحينيين أبو هريرة بن لو أيوها انت سوحي كسميين اسكد ديين إني دتك إسلام كاللقو شيئا يكبع دعيا نوعا والصحابي جليل وانين كده ما يوم معلم جامعة لها مركاوة قالوا وحي كسو شبطي نوعا واسكد ديين وحي يرهدين منك هيدا الشيطان تعا وتعليمتها الدون كالإلهية له قامسة waxay yiraahdeen ahadiista nabi waxyaalo la isu geeyo been weeye wax ka sugan ma jiraan marka uu inta ka gadaal baana la dawinay waxa kala arintaas ayada markii u suura gal noqo weyday oo rabbiga diintan soo dejiyo wasagu ballan qaado inuu xifdiyo ee uu yiri inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun annaga quraanka soo dejinay annaga ana xifdinayna wax alla wixii quraanka lagu bayaanay annaga xifdinayna kitaabka Allah iyo sunnada nabiga oo culuma wax kala taqaan oo ahadiista nabiga ka sugan garanaysa Allah u soo saaray oo la kala shaandeeyay waxba lagu dari karin ayaa la yiraahdaa hadana dhinac kale aan u laxno hal tashuuhiyo taariikhda islaamka see loo tashuuhinaya xadaarada caalamka ka jirto dhan hal la yiraahdo reer galbeed iyo gaal ay ka timid laakiin islaamku wax wahay ma lahan dad masaajid ku dukado waxay aan la garin oo usag badano aan meeyro aqoono aan wax soo saaro aqoono aan tiknoolajiyada lahayn bay ahaayeen وهكذا هالكاس عندنا لقى صوب العبد واللي اسكدي إلى أي يرهدين يعني نمك يهود حكماء وبرتقال يعني حكماء السهيونية هذا الله أي يرهدين واحد كمل هل رد هذه تعليمتي هراء أجرتي تاريخي هراء الله قرنا هلاقت تخلصه في أن أقرن تاريخ أن عالم أقدر عدي إنه إسلامك إليهين دلي ذاتك شرفت إيا قيمها على إيهين شعبك الله دورته شعبك يهود اللي يراه إلا شعب المختار بيصير غانين شعبك إلهي دورتي سلاس أيه يرهدين وفعلا ويكوكو ليسان هي أدى علي سمايين هي أدى أيضا سمايين تلي سمايين وحا كدن بيه مال والباء ودين إسلام لغبرتي جامعات أما معد وإلي كقالاتات المامو هوسنا تكتا هي أدى أيضا أدونك حال مال باكت جرتبا ليلة هي أدى وحكا قالان جرين دار بحديث بيهات وكتير لما كا وسيها يسمح لغبران جرين أيضا ولاقات تخلصي حتى جامعة الإسلامية وجامعة أم القرى وكوكلا يا مكة يا مدينة وحي هوستغان هي أدى أيضا وحي أدى جدا هبك تعليمتا وحي أدى جدا أرضا مركة لفسحة هبك امتحاناتك وحي أدى جدا ضدك اللي أقبله سفوينك اللي وحيريه ده أنت أكبر الله ما أقبلك شهادة النوع عاسا كنسو وفد ألاس أهين لما يليه ده هداد قارتة جامعة المرهد هدي الشهادة هذا شنصنا يسوم ويقول انقداع الدراسة كوكو دحي انت صودا واحد الله اي يونسك الدجيدي وحنا كل شغاية جامعات إسلامية وآراء اليهودية الشيدانية وخربا ودوجد إسلام كله بعضين ايوه مركبا ما انت هدو تغو كونتنجر تعليم دونية وأفعل بإنه برت أبان وأن دينته وحبك القرنين وحالي يدعي الأقبال الجروان دابتك هاي هدي آتك تأدي ويستدح سنة سوم ويسكول كدقينيسي وحالي انقداع الدراسة كوكو دحي يعني قرأ وحال الله قلت لك قال إنك حالك قرانا إنه سن واحد دم إسلام كأقامنا ومال إسكت عاقده إسكت فريستوى هدو دوانه
والوجود دلالي محايا المعلمين أكثر كذا واحد الوجود دلالي علمانيين إن نقران هي أو أي كوت السامبا دين زين إسكتاعن تحيل إسكتاعن وحبان هاي وسيلة جماعة أزر إيه لين نكسر أزر كسر بحي وحال الله قلت رجال مال كسر أو لو قلنا لي إنه كنا ولا هذا مال خمر لقى عبي وكان سير لقى عنا إنه كنا ولا هذا الله قلت رجال دين في عنا ماشي كدير إنه كنا ولا هذا الله قلت رجال سلام ماشي لقى عبده إنه كنا ولا هذا الله قلت رجال مال كسر وتجا وذك الجوجة رالينا جرى كرر ناس عن كرر أراد أوفر علماء الكتاب ما يتبعون وياك حقدر معاوي يتخرج من هذه الجامعة زوجته عارية هي هوانتي سوى عارية يتخرج من هذه الجامعية وهو قاضي وقال دولة كافرة يقال وياه يتخرج من هذه الجامعة دولة كافرة يؤد عينيا أو إمام يعني مساجد يؤد عينيا نكه وقامية يتخرج من هذه الجامعة وهو يعرف أصول الدين بوصابر تاليه أما سوى صابر تاليه قسم يعني الحديث أما قسم القرآن وهكذا واستدعي كتر قلان لمن كان قال الله استدعي وحتشوية نوعاوية مركا إخواني aan ku baraarugna cadawgeena habka ay noola dirirayaan aan garanno kufaartu waxa weeyaan wax walba way isku dayeen islaamkaana waxay ku talagaleen inay baabiyaan Allah subhanahu wa ta'ala markaa wuxuu nagu leeyahay ya ayuha alladina aamanu in tudi'u fariqan min alladina utul kitaba yaruddukum ba'da iimanikum kafirin wardadka Allah iyo aayadkiisa rumeeyayo hadda adeecdaan koox ahlu kitaabka kamid ah oo yahuud iyo nasaara aad tala yeeshaan ama aad wax weydiisataan waxay idin celinayaan gaalnimo iimaankiina ka gadaal hadan nimankaas oo noola ayaa waxa laga baqay inay isu laayaan qabiil culimada qaar ayaa macna noocaas sheegta oo takfiir yani kufriga halka laga hadlayo oo qabiilka yahay sid u gaalowdaan ayadoo aayad Allah leedin ku dul aqrinayo ayadoo rasuulka Allah idin dhex joogo maanta saan u gaalowna kitaabkii quraanka ayadoona dhex yaalo sunnadii nabiga ay dhexdana taalo waman ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim ahad ka rabbi diintii sabab u qabsada oo rabbi sidaba isugu dhiiba dariiq Allah raali ka yahay oo toosan baa lagu hanuuniya laakiin haddana rabbi isu dhiibin dariiqa inaku hanuunin mayso maanta waxa weeyaan aayadaas ayada maanta soo degeynaysa maanta la mid tahay warseed u gaalowdaan adinkoo quraanka akhrinaya oo qabiil u taageertaan warseed u gaalowdaan adinkoo quraanka akhrinaya oo gaala u daba orodaan warseed u gaalowdaan adinkoo quraanka akhrinaya oo dimuqraadiyo codkiina u siilaan warseed u gaalowdaan adinkoo quraanka akhrinaya oo naagihiina u qaawidaan yurubtana ugu dirtaan warseed u gaalowdaan adinkoo sunnadii nabiga akhrinayo oo wax walba nabiga xaqiisa ka yimid aad dulli u aragtaan kufriga iyo xaqan asara ugu qaadaan xaqiiqada halkaas maanta naga maraysa waayo aayadan ayada maanta dadka la hadlaysa maanta anaga nala hadlaysa laakiin waxaad moodaa inaan quraanku ku soo degan dadka maanta jooga ee loogu talagalay qolo hore tagtay rabbi ha laga boqo subhanahu wa ta'ala wax walba gaalada way naga dhaadhicin way noo tashwiiyin wax walba ilaa ay islaamkeena nagu direen oo taariikhdiisa noo xumeeyeen oo ay dulli ka dhigeen oo ay sumcadiisa ku cayaareen ilaa waxay ku dadaalayeen 24 saac ceebta islaamku iska leeyahay oo rabbi ha laga boqo subhanahu wa ta'ala yaa loo shaqeeyay nimanka mas'uuliyadda la yiraahdo oo cadawga islaamka ah oo ku dadaala inay 24 saac dhaleecayaan qof muslim oo diinta Ilaahay u soconaya Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu nabiga ku yiri isagoo la hadlaya qul ya ayuha an-nas inma ana lakum nadhirun mubin nabiyow dadka waxaad ku tiraahdaa anigu waxaan idin ahay dadow mid diga oo digidiisu cadahay oo xaq wata anigu ma yihibo yiri mid dhulka wax ka saara ilaa waxay yiraahdeen aan ku raacne orado magaalada Makka nooga durji buuraha orado wabiyal noo durduri beera noo soo barwaaqay waxyaalo noo keen sidaasay ku yiraahdeen waxaad ku tiri anigu nadiir mubiin ayaan ahay haddaad ku tiraahdo shacabka aan ka dhalanay kaalaya diinta qaata maxay walaadadu noo hayaan ma maqlaysid hadduu halka inta mid sheegdaan faajir istaago yira kaalaya reer hebel ku dul maxaa noo hayda la dhiimaayo war haddaad tirada kaalaya walaal muxuu noo sheegay anaga walaal muxuu noo sheegay oo kan wuxuu sheegaya waa la dhageysta kan maxaa loo diiday waxaad ku tira nadiir mubiin ayaan idin ahay ma ahan inaan idin leeyahay barwaaqan gacanta idin gelin barwaaqadu gacan rabbi bay ku jirtaa xooluhu gacan Allah ku jiraan caafimaadku gacan Allah ku jira adinku rabbiga idin sameeyay adoomo u noqdo marka ka gadaal Allah isaga idin badbaadinayay macnaha meeshii la sidaa weey waayo Allah baa yiri wanajayna alladina aamanu wa kanu yattaqun waan badbaadinayna waan nabadgelinayna dadka Allah iyo aayaadkiisa iyo nabiga rumeeyay oo marka ka gadaal wixii rabbi ku waajibiyay fuliyay wixii rabbi ka xariman isaga tagay dadkaas waa la nabadgelinaya laakiin cid kasta la nabadgelin maayo rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu xadiis saxiix ku oranaya salawaatullaahi wa salaamu alayhi waxa la soo saaray oo aniga la soo bixiyay inaan diinta Ilaahay difaaco
risqigaygana waxaa la yeela buu yidhi seefteeda hoosteeda xadiidkasoo nabigu usoo wada maxuu oranayaa wajucila dillatu calaa man khaalafa amrii dilliga iyo dalahaan xumada iyo qurunka waxaa la dul yeelay qofka aniga amarkayga khilaafa qofka aniga dariiqayga dariiqaan ahayn diin ka dhigta sidaas ayuu leeyahay sala allahu calayh wasalam dilligii uu rasuulku sheegayey yaa la dul yeelay axad walba ee nabiga amarkiisa khilaafay ama islaamnimo ha sheegto ama ha yidhahdo shuuci baan ahay ama ha yidhahdo dimuqraadi baan ahay ama ha yidhahdo qawmi baan ahay wax waraba ha sheegto nin alla ninkii amarka nabiga khilaafa musiibo ayaa loo ballan qaaday maalin ay ku timaadaba waana midda meelan ka aadna alla nahay oo dhinac kasta naga hareeraysay oo dhinac kasta aqaladeeni soo gashay waayo allah wuxuu oranayaa fa inna liladiina dalamuu danuuban mithla danuubi asxaabin falaa yastacjiluun war dadka dulmiga sameeyey waxaa u sugan on kuwii ayagoo kala ahaa nasiibka ay cadaabka ka heleen iyo dhibaatada lagu sallidoo kale ay helayaan iyo waxba degdegsanin marka dadka dhaalimiinta ee diintan alla dulmiyo dhan way helayaan cadaabka iyo ciriiriga hay iska sugeen baa la yidhi mali u doondoonin axad kasta isku daya inuu kitaabka qur-aanka iyo sunnada nabiga tashwiihiyo ama axkaamta diinta oo dhalin u soo jeediya nooca weeye hay-adda uniska waxay tidhi yani fiqiga islaamiga ah markay diinteenna doonaysa inay dulli ka dhigto fiqiga islaamiga ah waa hadallo laga soo qaatay yunaanka waa warar laga soo qaatay thaqaafada carabta iyo meelo kale waxaana ku fekeray niman oqoon-yahanaa oo islaamiyiin isku sheegay marka wax la qaadan kara maahan haye waxay doonaysaa min awali ilaa akhiri inay diintii ay baabi'iso midda kaley tihi diinta islaamku waa diin addoonnimo iyo dulli dadka ugu yeedhay mada ogolayn xornimada ayagu ay doonayaan waa in la isboodo jira gumaysiga ka bixiday oo dadkii la addoonsan jiray ka bixiday oo xiriirigii ummadda ka saartay waayo waxaa la garanayaa rasuulka waxau u soo baxay sala allahu calayh wasalam inuu addoommada ka bixiyo cibaadada ay addoommo kale caabudayaan oy alle kaliya caabudaan xiriiriga adduunka laga baxo wisciga adduunka la gaaro xaaladdu noocaas ayay ku socotay marka nimankii gaalada ahaa sidaas ayay wax noogu tashwiihiyeen laakiin allah subxaanahu watacaala markuu nabigiisa la hadlayey nin kastoo muslimana warkaa lagu oranayo waxau yidhi falaa tudici alkaafiriina waalmunaafiqiin wadac adaahum watawakal cala allahi wakafaa billahi wakiila nabiyow ha tala yeelin gaalada munaafiqiinta ha tala yeelin weligaa ha war maqlin nimanka ha war maqlin waxa ay ku dhibayaan iyo waxa ay ku burqamayaan isaga tag xagga isaga tuur rabbigaa talada u dhiibo allah kugu filan waxna kula qabanaya samaantana ku waafajinaya nimanka ha war maqlin yaa ayuha nabiyu ittaqi allah walaa tudici alkaafiriina waalmunaafiqiin u fiirsad halka allah rasuulka ayaa loo naadiyey yaa ayuha nabiyu baa leeyihi nabiga alloo loo waxyoodow rabbigaa ka cabso waxaa la waaninaya waa rasuulka allah maanta ninkaad ku tiraa allah ka cabso maanaad iwaanin buu kuleeyay agsarka dadka maanaad iwaanin maxaad igu aragtay khayru khalqillahi baana lagu leeyahy ittaqi allah alla ka cabso alla ka cabso iska ilaali waxaad ku jirtid oo xumaan ha isku dhex gelin markaasa haddana la daba dhigoo la yidhi gaalo iyo munaafiqiin ha isku tala yeelin weliga nimanka ha war maqlin maxaa yeelay gaalo iyo munaafiqiin isku dar waa yeelkoodu shaydaan weeye adigana waa yeelka ku hogaamiya waa allah oo aayada kuu soo dejiya oo jibriil kuugu soo dhiiba haddaad nimankaa tala yeeshid shaydaan baa ku waayeel noqonaya shaydaan iyo xisbigiisana naarta ayaa hore laysugu geynaya marka nimankaa ha tala yeelin sidaasuu allah kuleeyahy subxaana wa tacaala raggii sidaa looga digay ayaanu maanta nidhi adinkaa ilmaheenna noo barbaarinaya adinkaa dumarkeena nooga wakiila adinkaan dhaqaalaha idin dhiibanay wax walba adinkaan raalli idinkaga noqonay ilaa ay xaaraanna siiyeen ilaa ay wanaagga naga durjiyeen ilaa ay akhlaaqda naga lumiyeen si kastoo nidhaah allow noo gargaar alla oo ducada nagu soo tuurayo maxaa yeelay muxuu rasuulku ku yidhi sacad markuu odhanayay ducada in layga aqbalo alla ii bari adcim madcamaka takun mustajaabu dacwa waxaad cunaysa xalaal ka dhig ducada waa laga aqbalayaahe axad bakti cuna in duca laga aqbala ha sugin ma dhacayso marka 24 saac ilahu islaamka wuxuu qabo islaamka wax loo qabana waa islaamke waa islaam bakti ku barbaaray oo caloosha uga buuxo oo ku jiibsado oo labisay oo wax kale u jeedin marka say ku dhici karaysaa in allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba soo ma ogid rasuulku inuu ka sheekeeyay nin socdaalay oo dhibaato badan ku dhacday oo rabbi gacmaha u taagtay oo la yiri musaafir baa too ducada laguguma diidi karo waxaad cuntay iyo waxaad labisatay iyo waxaad cabtay iyo waxa aad ku soo barbaartana waa xaraan fa anna yustajabu la see lagu ajiiba musaafir waa too musaafir duca laguma soo ridi karin laakiin adiga dhan bakti baad ka samaysan dad bakti ka samaysan see wax looga yeelaa saasaa lagu yiri haye ma dadkaasaanu ka wanaagsan anaga kolka maxaanu raadinaynaa ilaa waana la ka kari lahaye waxaan waa xaaraanha laga fiirsado xataa haddaad ku tiraa dadka maanta jooga iska hubsada waxaan
maxaa ugu yaraan badan xoolo uu iibsanaya haddaad tiraa iska hubso wuxuu ku leeyahay hanaga shaki gelin annaga nadhaaf waxbaa nagu adkaynay waa cajiib waxyaalaha yaabka badan bay ka mid tahay rasuulkii allana wuxuu ku ammaanay dadka iimaanka leh sala allahu alayh wasalam dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuk war waxaad ka shakidoo dhan iska day waxaadan ka shakin aad maantana haddaad tiraa war waxaa maagciya laga fiirsado wuxuu ku leeyahy la nadhaaf annaga hanoo xalaalayn quudkanaga maanaa quudka kuu xalaalay aduu baktiga maxaad u cuni war rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala halkaasaa leeyahy diin iyo dad baa xaggee diintii xaggaa la geeyey maalin hore ayaa gaalana gadatay wakti hore si kasta ayay noo iibsatay aan rabbi ka baqano subxaana wa tacaala nimanka gaalada ah markay intaa tashiir ku sameeyeen waxay samaysteen rakaa'is iyo amaakin laga soo duulo sida la garanayo qolada ugu horeeya islaamka kusoo duushay waxaa la yidhaha yani sahyuniya ama yahuudiya sahyuniya iyo yahuudiya waa yani qolo isla mid ah oo macnaha waa isku mabda waana hal qole ayaana laysla yidhaahdaa marka sahyuunku waxa weeyaan yani qolo loogu talagalay inay badbaadiso yuhuudda hadafka ay u taallaana waxa weeye in ay yuhuudda isugu geyda baa la yidhaha qudus oo ay falastiin meesha ka rarto markaa ka gadaalna hadafkeedu wuxuu ahay baa la yidhaahdaa in ay caalamka islaamka inta loo yaqaano meel walboo kamida gacan ku yeelato dadka islaamkaana khilaafadooda ay tirtirto oy isku daydo inay gobolla ka dhigto gobol walbana ay ku dadaasho kabacdi inaan diinta lagu xukumin hay-addan saasay u samaysnayd sahyuniya la yidhaahdo waa qaybta ugu xun haddii yahuud la yidhah iyo haddii sahyuniya la yidhah waa isla mid macnaheedana waxaa loola jeedaa ilmihii yani nabi yacquub ilaa reer banu israiil marka leeyahy waa awlaadu yacquub oo israa'iil nabi yacquub baa la dhihi jiray isra waa cabdi baa la yidhaha ilna waa allah ama raxmaan luga alcibraaniya marka waata ilahay yidhaha yaa bani israa'iil yaa israa'iil alla ma yidhaah awlaaddii nabi yacquubow baa alla ku yidhaahdaa subxaana wa tacaala liajli hada nimankan yahuudda la yidhaho awlaaddii nabi yacquub laakiin maxay noqdeen mujrimiin aan allah aqoon yuhuuddu waxay yidhaahdeen ama shirkad yani loo sameeye yani qolada ayada sahyuniyada la yidhaha waa xaraka khabiisa oo hadaame ah oo hadafkeedu ou yahay alqada'u cala almabaadi inay mabaadi'da islaamka tirtirto iyo wax alla waxaan yuhuud ahayn ayay arrinteedu ahayd nimankaas waxay isku dayeen in bal in dawlad loo hagaajiyo yuhuudda dibadeedna caalamka oo dhan la khalkhalgeliyo sida ay uga takhallusi doonto waa si yaa badan khilaafa alislaamiya waa nimankii ka takhallusay khidada ay uga takhalluseenna waa khido cajiib ah markaad eegtid maxaa yeelay dadka islaamka way iska hurdeen muddo markii diintu meel fiican gaartay oo ilaahay sare u qaaday waa la raaxaystay dad hadday raaxada iyo cunto cunidda iyo jeclaadaan maamulkeena bis waa u dhammaatay xaqiiqada noocaas ayay ku dhacday nimankaas sahyuuniyadda la yidhaha marka waxay ka shaqaynayeen khidmatu lyahuudiyati alcaalamiya yuhuudda caalamiga ah u adeegideeda iyo baabi'inta dadka islaamka ah waxay yidhahdeen marka aanu shaqayno xataa yusbixa alcaalamu kullah muslimuuna wagayra muslimiin caalamka oo dhan muslimiinta iyo muslimiinta kayrkood ilaa ay noqdaan fii qabdati alyahuud wa taxta saydaratihim bay dhaheen u fiirsa nimankaa caalamka oo dhan ilaa uu noqdo gacanta yuhuudda iyo saydaradooda aanu shaqayno aanu wax qabanno aanu la dagaalanno islaamka sidaas ayay ku hadleen nimankaaso waa caalamka oo dhan intaan gacanta ku dhigno oo ficlan sidii bay yeeleen caalamka oo dhan gacantay ku dhigeen tacliinta adduunka oo dhan yuhuud bay gacanta ugu jirtaa saddex waxyaalood baana adduunkan lagu hagaa maanta waa midda ugu horraysa tacliinta yuhuud bay gacanta ugu jirtaa dhaqaalaha adduunka oo dhan yuhuud bau gacanta ugu jiraa maamulka ayagaa iskale dahabka ayagaa xakuma adduunka wax alla waxa la kala iibiy ayagaa xakuma maantay doonaan bay dahabka dhulka geynayaan dhagxaanta qaaligaa maantay doonaan bay dhulka geynayaan maantay doonaanna hawaday geynayaan siday rabaanay suuqyada adduunka u maamulaan wahaakada siday ayagu rabaan qaybta saddexaad oo adduunkan maanta bal yuhuudda iska day oo kasii dhib badane waxay ku dadaashaa marka ay u tagto meel inay taakulaydo dadka dhaawaca inay dhibaato u geysato oy lugaha ka jarto oy mushkilad samayso oy isku dayda qabaa'ilka halkaa jooga inay isku dirto oy tira idinka reer hebel yaa idinka badan iska dhiciya dagaalada ka socda qabaa'ilka dhexdiisa agsarkooda hay-adaha tafsiirka ka qayb qaadanaya oo lagu leeyahy meeshay dhaqaale geeyaan agsarkooda ayagaa ka qayb qaata dhaqaalay meesha geeyaan baa lagu leeyahay kor bay dhaqaale geeyaan inta ay ku geynayaan saddex culama laabkeeday kaa goynayaan war miyadan sidaa garanayn war rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala mu'aamaradii ayadaa way socota kolka
حتى انتهت إلى أي ضماتي سوق قالت بزوال خلافة العثمانية خلافة العثمانية إلى أي باب أضي ومعقل كإسلامي جاي أو تركرمي معقل كإسلامي جاي مركه أو تركرمي روي أو لباب إني خطرت وقدم بيدا واحد عنت لوجلي نك الله قوم على مصطفى كمال أتاتوركي مجرم كمال أتاتوركي مجرم الخبيث أتاتوركي باقي عنت لوجلي سيؤسعت نكاس الله سلمي مركز هذا إن ما كان كتخلص برقها لوايو نكال أتاتوركي الله قوم على يهود أي أوديبتي خدوين كيهود وحكوب بربريسي محا أبوه الرئية وحا أبوه الرئيس يهودي مرتدين تأهد يهودي مرتدين تأهد أو إسلام كقاراتي مسلمين تو مركي تغين أسبانية يا أماكن تلا متكعة أو إن رب بدن قبسدين دد بدن أو يهودا يتظاهرون الإسلام إسلام كظاهر تبين سيدي مكتبة إسبان كسالة نيكا فرهايه لا شن يتوسع أيام مكة يوم الدين وحقدوا كانوا يقولوا أو علماء كجوا اللغة العربية الدين تكبرني أنا إنجليز كجاجوسوا sidaas oo kala dad hayimid oo fara badan qolada ugu horeysa shaqada qabata waa ninkaas 15 sano fil Makka haram al Makka wa haram al Madina ayuu dhex fadhiyaa yusalli wa yasum wa yahuj واللحية كبيرة مدولة لحية كبيرة لا يعني لا يحلق لحيته قركي سمح يريو إلى أو هران قلي كريو انت وتجرى ما شاء الله كان هذا مدوع مش مدوع هو مجرم خلاص أو عدي سلام لأجل هذا نمنك يعني بقرطوية سيدانية دا أماسا كجرت الجواسيس سوا مدبن مدك كلوا كجروية وجهنا سجود سيقوم وغنيسو إلى هذا بدنا الله أكبر ما شاء الله كان حرم كذا هذا الدولة دولة كافرة والله يقولوا كذا أي وحد دون أن تتكلم إن هذا الشيء مرة كلية أو كوكبه يعني سيد كورنتو كهرم الكل بوده ساتور ربا قريب بل كور روح على جيش ليس يالين وردها لقبه سبحانه وتعالى وردك مسلمين توردها ككعب ودد دين النقرة أخي المسلم لو جوا وقت الغاز نقطي إسكت جوين أون فشلوني يقعنا ما وقت نوع عسى لما جوا قرأ وقت الله صامر روح وياي واحد إسلام كايستا نمن كيهودا ومرتدين تا إسلام كموجودين هالكاس ما كإسلام كموجودين وقالوا أبوه الرئيس الله قبضي محايا المسلمين بالله هستا شقوين بالله ديبي مال الله مقعابي وهكذا قالوا الله بعد كتر خلص يهود عليك سنتي والسليم السليبية الحاقدة المجرمة ونعب الإسلام والمسلمين نمك السليبية اللي يرهدوا وحاقدين ونعب إسلامك يا مسلمين وقحنا الله بعد ولا أدرك سدي وحنا أركي دونا هذا الله أي كحل الدونان نمك السليبيين اللي يراه مركي سقط ساق بنيان مركي أركان إسلامك إنه قرصان نقضي أو مال والإسلامك قرصان أيوه ولي بوحى اللي يراه بعد سقوط القسطنطينية اسطنبول مركز على كجلال مركز كجلال أي أدو براروجين سليبيينتو واحد يورنا من كان شغل النقود ضوالانه هالنقود قالت طبعا كان هدي الله دون أن كده ودبرنه سلا رب الله بعضيه نظام كل الحاجات دي وأشكال الله بعض ولا الدولة يلقوا بعضيه إسلام نكل إلى محمد الفاتح وأصابه قبصدي إسلام كوا صوص على هل كاسو فينا يقول على وسيف في الدونا هي أدون كده أيوة هايستاف مسلمين تو مركوا علينا من كان ما أهانه ورنا من كان سلا يلا نما كان هذا دين توله هلا قاتو هلا دحقلو هلا برتو هلا قمد نقولو هلا شقيو انه سيالنا هذا ولوه شيء ذاك الإسلام كان واحد لقى يابا إن قد لقى غنيمة قفك مسلم كان رسولك منه قال له حديث يقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين قفك مؤمن كان الله بجار لما دغو مرة يقول لقى غنيمة مرة لقى غنيمة كورونا بيقول ايه صلى الله عليه وسلم مسلمين تمارين بيقول لقى غنيمة وانت لو دغدغ كذا لا يري ادين كان يكملنا هوسه ثابت لو ودي وحلا هذه هرجلك كعان او اسك اغا نينك كما هو يحيى تاس لو باهنا لكن ما يسن دحين قضيه ايلها نمكي way wadeen maxaa yeelay waxay in islaamku wuxuu gaaray Bulgaariya Romania Nimsa Faransa Ruusiya iyo Yunan Itaaliya meel walba waxa ka gaaray marka intaas oo meelood dawladihii markaa joogay oo xagga masixiyada ahaa iyo wax alla wixii ka haray wixii islaamka raacay intii kale waa la midoobay intaas marka waxay ku midoobeen islaamka inta uu soo gaari raba Bulgaariya waa gaari raba Nimsa waa gaari raba Faransa Itaaliya meel walba سلا يلاله أن نضررنا لمحاربة الدولة العثمانية الإسلامية مع كونها قلادات إسكال الإسلام بينات أن نضررنا من كسالير ولا سوا فقط بحيل الكفر ملة واحدة كفر يقولوا ملة كلية أنا وحكوا عدينا يا الله سبحانه وتعالى مركو كش يكيني قال له وحوير ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا
أهل الكتاب بيهايين نما كسيدا الله كأوجه اللي أهل الكتاب كيهودي النصارى ولما يهود وهي كل هذا انقلاب عربت هذا حرم كجوفتي محمد يتذكر راعي أذن كهنون يدين بدن أول أربع يسوهاين ما أنت لارك محمدين وصلنا وواحد اللي ور يهوديو نصارى مشركين وثنيين وحكوادي من مينه أنا قاعد دين له محمد ده وبادر عن كثرنا وهكذا أرنت سلاوي سلا أرنت على يسوي إن قالوا ما أنت دم وحيلين ورسالك وصاقع وران مذونه وران اسكت عنه وران دين ده اسكعلنه مثالا هدي أن اسكبد ده يدد قالوا ضدك إسلام كسيجنا يحتا يعني واحد جري إنما إسرائيل الصومالي جو جري أقول لك اللي يرادو قادرية صالحية إلى أي قادرية يرادين من قتل الصالحين فكأنما قتل 70 كافرا صارت كتاب كذا قوارن هل الصالحين كديرا تضباطا قال نجيلو لمديه هاي شيخ قطبي هاينا شيخ قطبي تضباطا نارو تضباطا شيخ الصالحين هو الأغيبي تضباطا نارو بوميد إنكو قرأ نما كيسيدا اسكوها ما أنت العرك الشباب الدين بير ودان وبل إله هلاك عرس إليه بيعيهم مدوبين هل مال أنت كسر ولا الجلسان باليري وحكى وجري أحمدية قادرة وعالم كل درسه قبورت الشيء على الشيخ صوفي أي أنا كسكج أنا كعالم كلا أنا قاله نما كديك بيسكين جري وإسنا معاين ما أنت دم عليه كوان موجودة ما سوي نجا قال روان وهذا مدوبي اتفاقية هذا علي خلاص هل مال لقيت ولا جلس وأنا من كيساقنا هل من نكي دل أو ساعية تضربنا قال نصر ومن الكتاب اللي رابي كقولين هاي كبعد أنت تصدق ما أطيع ولا يسوق كل مي ولا يسوق كان علماء ولا يسوي يري ونار والبقال الله قدام يتصل صار وحنو إفتاني الله واحد كاسة قالوا ويا هلا لايو هاي أولياء دي بكوري أولياء دي اللي تيجي أولا ده هي كان كوري أولياء دي حق آدم بربر كان معي حقوق قبوي هاي أولياء اللي يرى كان يقول كان إلى بربر حق قبض إلهي أولياء وليه لكن أولياء إلهي أدونك تصرف أيضا كل أمان أدونك الله كلا يأخذ تصرفه سبحانه وتعالى مركان نسكفر إنه حيانا قاركل ولا سومي دول وحلو سومي دول على الله قبض يعني كتاب قرآن يسننا بإيمانه وحيانا عجيب كفضاء ودعاية وحكم ذا أنا يسوى قرصتي هاي نمبا إيمت ومفسر قرآن بفسرها ويقول لي هروحان ددددلك كصادق ودددن هدي ذلك اللي قد يقول بلان بانكو قادينا كحيرو وسارد قرصور كما سيرادا وسارد قرصور كي أديك يكيه هربا سدح مجرم باتين خلاص هدي وين نروح ما تارين دمرك نيكي أستقع آيات آخرية هذا لو يقول يدك كان دددن على قدر يدرك ربنا على قبضه سبحانه وتعالى وحيالا قاركو وحيالا قريبة وي مركي نمانكي قالوا يعادوا إسواء أي وحشيين ولا كسر ودون يسين الدين الإسلام كقدو شنا وحشيين أيوك انت هشيان بيلاين دين هذا كرترو قالوا دي سلاس بيانا وخلاف الإسلامية سيدي الدولة يكون بابيان خلاف الإسلامية وحكرا لقوا بابي وحويان أرنت كان أي صحيح مركو يهودي السليمية لسميه أرنت سدعوا وحي ولقوا سميه على الدعوة الفاجرة والدعاية دعاية حم ولا قفها في يعني هيكل كإسلام كأردن دعاية داس أيضا أفعل يهودية أيها في دينيسي مال والبن أيها قارسينيين إلى الله تصي إسلامك إنه واحد بابيان واحد ديران واحد عان أو كليئة قد يدون إسلا كليئة هاي صارت سعدين أرنت أفراد وحلقوا بابية وحويا جمعيات سرية خاصة جمعية اللي المأسونية أو هاس كبابية لإسلامك هاس لإسلاقي حركتك كان دين تلهين وأرنت أفراد أرنت السنة الوحية دعوينك أن صوشة من القومية لها إلى اللي عربت يقار أبقى أنكم عرب باتين أنكم كذا وهكذا خلاف الإسلامية على كل حال بابا أضي تركيا أنا وحي كقولين نغطين منكي عربتها نكي مجرم كمال أتا تركي اللو بحيانا وحو نغضي ملاح هلكا سيوقع عنك كل جاي مركا وقع عنك كل جاي وقوه الرئيو السماية وحو علماء الدين كدتك أهينا وباب يوضع مليانا إلا أو دلبا لي ربق الله مركا أو دلدتك واوين أو علماء أنا ميت كودا جيتك أيوك الله الجراي أتا تركي وحو حيلي كثيرا من المساجد وحو حربي آذان كالصلاة إن اللغة العربية اللي هو آذانه وحو ممنوع الصلاة إن اللي قدو كذا اللغة العربية وحكا سافتركا اللغة الغريبة وحتى الفاتحة ثلاثة يوكود ذلك أخيرا شعبك وحو كقصبي زيغ إسلامك إلا بدلوه زيغ إسلامك إلا بدلوه لقاته زي الأوروبي ما سأي كتم الجراء اللغة العربية ووديده وحو البا أفصامالك حول قرأ قبلها اسكول كدكتاف يونيفورم هالسواقاتين أتا تركي ما انت سوجيدي انا كان شباب نلوك يعني ما انت سنتاتوك كل واقعي اسغو خدي يهود الفلينيه marka madaxdan kul ila yahuudu shaqaysa garo oo kul halka ka wada yimideen waa tababarteen zay ma arki karabo illa dar Eurobiya mooya dar Islaami ah ma arki karaba
آلان صلاة مجرو يعني عربية وقت الدنباء وقت الله شيء إن آلان كي اللي بدلوا وحيالا بنا ما مرد من اللي بدلي هو ده أوليك صدعي لكن شغله وقت أساس ويان وحو بابية وزارة الأوقاف جامع الليلة أياسوف يلو يقانو وحو الدين إلا قدو كذا ومسجد كأقوين وحو نكدق مطحف dalxiis loo tago iyo wax la mid ah iyo waxyaabo noocaas ah wax walba sida u bedelay maxaakamtii sharciga ayuu tuuray qawaaniintii islaamiga ayuu baabiyay waxaana ku bedelay qawaaniin wadciya oo laga leeyimid Suwaysira waxuu baabiyay ninka asaga ah oo diiday maalinta jimcaad inay noqoto usbuuca maalintii faysada axadda ayuu ka dhigay tacaddud zawjaad uu diiday ragga iyo dumarka dhaxalka way ka sinayeen Ataaturki baa yiri shala naba keen anaga موجودة أتاتوركي أسأل مرك أبوريته سوسوج كنا نك أبوريه سميوها هاي أنا كنا سلنا لكوير قبل أي نمك وسنين ما يسمع على كران وهكذا شغلة أسرع تصدي يسيسوا دويهم ويسوا دي بيان أتواصوا به بلهم قوم داقون بقول الله يري أتواصوا به ورمي يسود دار من كفر قد كان بيا بلهم قوم داقون بقول الله يري واتد غير أو دين تكبحي وحاول يسمع دار من حقيقة ما عسويان وفي رسالة الله سبحانه وتعالى sidaas ayaa xaaladda ninkaas ku socotay ayuuna yeelay qawaaniinta islaamka oo dhan buu baabiyay waxa uu yiri ninka asaga gabadha lama furi karo ayadoo inay ninka furto suuragal way laateen xeerka qoyska soo taqaanaan waa xeer kufrinimo oo gaalnimo ah maalintii la sameeyay 114 qodob oo loo sheegay in la yiraahdo waxa waa dastuurka dalka maxuu yiri nin hadda la yiraahdo dadka nabadoonka ku jira oo maslaxada ka shaqeeya maslaxadan ka shaqeynaya yiri waxa yiri ma taqaanaan Soomaaliya Quraanka yani ma lama socon karin nolosheeda maanta loo sameeyay qaanuun dalka yani nolosheeda ka hadlaya shacabka maxabalaya ugu dhacday sidaas uu intay banaan bax wala soo banaan baxay wala taageeray dastuurka la soo banaan baxay wala banaan baxay wala taageeray muslimiintii ka dhiiday maanta xalka wax laga bedelo waxan maxay yeelay boogta Soomaaliya diinta qayb bay ka garanaysaa waxyaalo badan baa jiro la bedelay laakiin culimada la fahaantoodu waxyaalaha qaar kuma baraarugsaneenba waxay ku baraarugsanayeen dalaada iyo dhaxalka iyo xoogaa yar yar ay ahaayeen xoogaaga markay maqleen bay kaceen asurka loo wada dheeray waa loo banaan baxay waa loo sabciyay hay kuwa xuma kuwa wasaasaha raqiyiintii markaas waxa loo bixiyay ogoonyahanka ragga ah ninka aan salaada dukan doqonka dulliga oo daba dhirtana waxa loo bixiyay ninka Allah laga cabsado yiraahdo markaas loo sabciyo lagu socdo lagu waday hay markaas la rabo in la yiraahdo nasri iyo guul ma helno ma dhici karto أولاد ما يتكدر رئيسي نمك الذين معارض بيهيو نمك الذين دولة نوديسان ونمك أو برباريين كانوا عاصر كان عاصر كصبحين دستوركي ولا حبارسين أفريقون كي بقول قلبي كحبيسين آية القرآن ما يغانين صلاة مسيحي يغاني كوة دو كذا كوة كذا ما بدو كذا هي سوى يعني وحوا قريبا ويقران لكن سوى حوا إسرائيل ما يغانين إلا ما بستوامرين وهكذا ساسي أرنتو بسعة أمرك marka dadka noocaas ay waxay doonayeen wanaag la gaaro war maalintaas diinta ma soo weeraray Ataaturku wuxuu sameeyay arka marka rabbi aan ka baqano subhanahu wa ta'ala dad hurdada ka kacaan noqono oo cadawgan u soo jeeda ila cadawga maanta meel walba naga haysta ninka asaga markuu sidaas sameeyay inta ka dambayda way isku dhamaatay xaaladdu waxay gaartay meel qariib ah waxaana la isku dayay islaamka oo dhan in la baabi'iyo ruus oo qabsado wax alla wixii jamhuuriyadda islaamiga jiray yani muslimiinta ay noqdaan jasiirada yar yar meel walba lagu soo duulo yani waxa heshiiyay روسكا وحاجة كده على ما هي إيطاليا وطليانية إيه إنجلترا وإنجليزكا فرنسا قالوا والبمال بالودرة قالوا والبنمال أنت ورث هاي سوري ده ليري هلا بعض إيوه إلى سنة ذكر الله لينا يدبعتنا اللي جيس يدبعتنا يا بنات هاي شيوعيته مركي عرفت تركستان الشرقية والغربية فإلى إلى ذي وما تسرمي إيه بخاري إيه كي ميدان إيه ملايين علماء ومثقفين أنت بقى وحي إلى أن تركستان على تخلصهم هل قرني واحد كله أيات دجال الجوالي ولا يسكت لي حزب الشيوعي وهالكائن وقالوا احتلال أيوة كسمي مركي أقدم بيدي نمان بلا شفل يرى أي بلايا يدل على السنة والله كثير مسلمين تي نكلين اللي يرى واحد صاري كل يستقال بقول ثمانية يسددي رأي أوليه هي وإن إذا كروسكو أي كد درجان أو كستقان على بلدان الإسلامية هكست عليهم سيئو تفرمان هكست عليهم بويري maxaa laga doonayaa meesha sheekada laga rabo waa sheeko qariib ah muslimiinta hal baabiyo oo luqad carabiga hal joojiyo madaarista islaamiga hal tirtiro masaajida hal xirxiro yaana lahayn wax dhaqan islaam sheeganaya luqad carabiga duulaanka ay gaalada ku qaadan soo lama yaabti danta la leeyahay waa maxay haday soo haran mustaqbalka dad islaam aaminsan
والدين ربا يسن حرف اللغة العربية أقوان من اللغة العربية أقوان الدين ما فهمه معناه ساسوي دنت إلى عين ساسليه وفعلا دنت عيال وين من كانوا ويكون الجحيم معايا لذلك إسلام كأيها كسر عليه والله سبحانه وتعالى وحكيه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم أي إيمانك عملك صالح أيام لوي واحد زعمي وينقضين روشنك اللي يرادو نتيجة وحي نقطي علماء الدين هي الرجال وين إلى بابيو مذابح إذا مجاعلة أي أول أذان ذلك إسلام كتركستان 6 مليون أو مسلم أيا جاجا يجورا قدامتي تركستان الشرقية أريد سلاس أيكو صوت عطي نمان كشينها اللي يرا إذن كود أيقون سلوك الله يحق وقالين سيؤبى بيا المسلمين تا وحو قري إذن كشينها نكه جاميني هل مليون إيا لباب بقول أوكن دات كبلا أيان دلي تقرير كمالكو قد بيني أنت سيان دلي والإسلامها مالكو تقرير قد بيني شاكدو سلاس أيكو سعطي شوعية النوع عاسد ومد الله تلقى لأفريقيا إيا آسيا إيا إيشيا ما هو بينه بابيو كل جواب إلينا وحس يا كذا مي الأفعال اليهودية وحدنا يهود بجراك وطن وحدنا يهود بجراك شديدة شكرا نبا لكن ذلك الإسلام كأنت ما يسنجرني إذا عاد كأي فاسية شينها إلى المسلمين تبابيين مركا كجلان 1 مليون أو أهسينو أو شيعيين تركستان لوررو في الإسلام كله يقول بدلو مسلمين تنقصوا وقال لي لا شينها قولي هذا في الإسلام حلو قبضا عقيدة ده الدين ده أخلاق ده كله ولنتو marka islaamka inta loo soo qaybsaday oo sida loo soo baabiyay waxay doonayaan dadka maanta jooga dadka sida noo baabiyay inay walaalo noo noqdaan saraakiisha ay soo tababareen aan nidhaa waa muslimiin oo ayaga anaga ehelkeeniya inaan saan nidhaahno waxyaalaha noocaas ay ikhwaani rabbi laga boqo subxaana wa tacaala waxaa lagama maarmaan marka inaan wax yar ka isaarno bacdama aan hadalka ka gaari karaynin tacdiibka loogu talagalay islaamka in lagu cadaabo oo nimanka yuhuudda la yidhaa ay soo dejiyeen ayagoo oranaya waxaan ka soo qaadanay tawraad almunxarifa أيان كسر قابني تعذيب كأسجعة وتعذيب إلى هذا الجرا وهنا كجرا الصومالية سوريا مصر تونسيا يا ما كنت الله متكعة إلى هذا الصواب قرأ لا يويا لا كل قد ما رأسنا كسر كمدا خلق أبوه الرياح حينه وإن مسامير الطويلة ضد مسامير الطويلة مسامير يا مسبارات عدد وإن له جرع مسلمين تمرحوده حتى تصل المسمار إلى المخ إلى مسمار كله أو جار مسكحة وإن له جرعة si aan dadka islaamka diin u soo qaadin arinta labaad waxa weeyeen qofka masjuunka oo la xabisay waa in la gubaa bacda sabbil batrool alayhi marka batrool dushiisa lagu shubo ka gadaal waa inta rag lagu daaraa si uu ololo si uu ugu dhinto yaani maxaakimu taftiish marka la akhrisid wallahi yaa way man kaanu sameynayaan iyo sida ila hadda loogu kasooyo loo aaminsan yahay arinta kale waxa weeyay bayadeen ahadka masjuunka waa in laga dhigaa hadaf ay ku tababartaan ciidanka la doonayo in meel loo diro oo noqdo asaga bart meel baa lagu xiranaya waa lagu shish barnaa sida kabti oo kale waa waxyaalaha ay hadda sameeyeen nimanka gaalada ah wadamada aanu magacaawna yani qaarkood ama kulligood iyo qayb kalena saasi sameeyeen waxa lagu sameeyay mataqaana Tunis dadka waa la soo qabanaya bir waxa laga gelinaya gadaal qofka ilaa halka laga soo saaro ay khabiis burqiba ayaa sida sameeyay al-mujrim al-akbar رجال سلموا مسلم بوها عجيب تلك الإسلام كان ماشي إلهي والله يا بس كيف دين تأخرني كان أخرني واحد كل يوم ملاحظة الدولة إسلام وسير هذا الإسلام ككل ما وسير هذا وسير هذا الدولة إسلام كل يواكوه وسير هذا المجرمين تأوق على ذا ونيلها يشغل قرآن سبحانك والله الله ربك سبحانه وتعالى دولة الإسلام كسير هذا كله وروح واحد تقول سوينا ما رأيتان قضية كل القرآن وحوي بس كمسجون كبير أو حبس كجرا وإن لقوا حبس المسلمون في سجون لا ينفذ إليه الهواء وإن المسلمين لقوا حبس هوا سوقلي وأن إبتين لهين والله ما تنجروا يوحي لمتكها سوقرا ميسيس مرمرة سياسيين تلقوا درا لكن وحا الله قلت لك الإسلام كيهايين ما ننتي إلهي شركة ريدي الله وكما هسيهاي ونك كان إلهي دخري waxa ay ka soo shirayeen asaga iyo ninkii duqa magaalada lagu sheegayo muslimka ay magaranaysa maalinta aha magaciisa ma sheegayo waan garan laakiin waayo qabiil lama xanaaqay hadan sheegay magaciisa maalinta ninkii duqa magaalada aha iyo asagu markii afkooda ka soo laabtay waxay ku shirayeen ma taqaanaa danta lahay ma garan waxay ahayd oo hore loo sii qaaday maxamed ibn qawi yar kale waxa laga soo wada hadlayay dadkan dib dambe saan loo aray hala tirtiro 20 jiro wala sani laanta buura la tagay meelaha saan lagu soo maray sidii dadkan loo tirtiri lahaa ilaahay markuu shirkii arintii kala fashantay meel laga soo qaada la garan gari waayo laakiin sheekada la wata sheeko khadiir ay ahayd oo aad u qiyaab badan yani waxyaalaha ay ku wada hadlayeen dadkaas markaas lagu leeyahay dad islaami ahaayeen
markaa niman dan oo leeyahay waa nimanka aan nagu naqaan islaamka dayaarada inta soo duuliyeen erda ku nishaale ay ku qaadeen boqortooyada daaweynaysa illa boqortooyada waa gaalo inkaar ku dhacday maxay ninka noogu daaweeyeen waan Allah ka baqa subhanahu wa ta'ala markaas ay islaamiyiinti waa kuwa islaamka wax u qabta haye lacagta yay wax u qabtaan sidii oo dadkan loo baabilayo oo ka shaqeeyaan markaa ka gadaal waxay yiraahdeen waa in la soo qaataa masaamiir ee dadka muslimiinta madaxooda lagu kawiya marka madaxa lagu kawina waa in aalada kahrabaa'i ah waa aalada korontada lagu gubaa oo jirkiisa ximin loo gubaa qofka islaamiga ah waa waxyaalihi loo dejiyay muslimiinta in lagu cadaabo sida ayay sameeyeen iyo asyaa aad u badan hadda waa qariib waxay dheen maalmaha bilaha qabowga la joogo birmiil biyo ka buuxaan hal lagu dhexrido adigu 25 shay oo sida u kala daran ayay dheen tacdiibka islaamka loogu talagalay dalka islaamka lagu sheegayaa islaamiyiinta lagu cadaabaa sidaas loo cadaabaa ee meel lagu xiraa waxa lagu sameeyo iyo waxa la yeelo ma garan kartaa rabbul izza subhanahu wa ta'ala kaliga ayaa garanaya ilaahay caadil weeye ma suura gasho inuu dadka u gargaaro nimanka nooca sameeyay iyo dadka ku taageersan wax noocaas ee rabbi laga boqo subhanahu wa ta'ala waxay dheen dadka muslimiinta markii la xiro cidiyahooda aalad ha lagu soo saaro xadiid bir si xoog leh loo soo bixiyo marka ka gadaal dadka marka la xabiso waa in beel banaan la sixiyo ayagoo qaaqaawan bal siixin markaaba kulligood ay tukeenaya waa lagu ceebayn waa lagu xumayn waa la sawirin waa dumarka waa la furfurin waxyaalaha lagu sameeyo rabbi baa garanaya arintaas ayada waa nadra tawreed bay dhaheen yuhuud waa sida shacabka muxtaarka oo ku soo laaban karo oo yuhuud adduunka ku qabsan karta in islaamka sida la yeelo at-tawrat al-munharifa la tajidanna ashadda an-nas adawatan lil ladina amanu al-yahud wa al-yahud dadka iimaanka la dadka ugu naxibka badan dadka waa yuhuud iyo walladina ashraku waa nimanka shiiciyada la yiraahdo oo hadda noo jira madaxda adduunka afarka oo islaamka lagu sheegana waa shiiciya waa dadkaas noo jira iyo wax alla waxa shaqaalo oo shaqadooda taageersan oo xisbiga shiiciga iyo xisbiga kiristaanka iyo xisbiga dimuqraadiga kulli ka tirsan isku dar kulligood saas ay aaminsan dadka ugu dhow oo hadii laga yaabo naxariis in la sameeyo sameyn kara haba kullu gooyeen wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina aamanu alladina qalu inna nasara muslimiinta qaar waxay yiraahdeen hatta bani aadanka waxa loo qabtaa hadii la yiraahdo feebar dadka inay sameeyaan ka soo ragashay waa nasaarada waliga ma qalmaysid nin yahuudiya oo oranaya qaxooti lacag la siiyo ninkan wax uu rabaa ku wato laakiin waxa laga yaabaa in sinan ka baxo yahuudda kama soo ragasho ma ka dhici karto maxaa yeelay yahuud waa yahuud waxay yihiin ilaahay waa garanay subhanahu wa ta'ala ayagoo kulligood isla wada mid ah marka ka gadaal nimanka yahuudda la yiraahdo inta markay soo qaseen Iran iyo Iraq waxay u geysteen waxyaalo yaab ilaa ay Iran ka sameeyeen jamciyada yahuud ah oo tabarucad yahuudda u aruuriya islaamka lagu gumaaday wala soo waday Chad iyo Niger iyo Senegal iyo meel walba islaamka dhibaato badan baa loo geystay lagama soo warrami karo wax islaamka lagu sameeyay xaqiiqada marka sida u soo socota xaqay u socota ayuu meesha u soo socdo marka uu dhamayso ma garanaysaa oo ay nimanka ayuga nooca u fulinayaan waa in la baabiyo muslimiinta way soo socdaan qaaradda Afrika markay soo aadeen dhinacan waxa loo yimid Ethiopia hayla salaasa ninka la garab waxa siiyay Talyaaniga marka hore Ingiriiska waxa loogu talagalay muslimiinta in la baabiyo oo eber laga dhigo waxa uu soo ragay qodobo dhowr ah isagoo aad cara uga muuqanaysa waxa uu yiri ma dhici karto in islaam laga helo Ethiopia ama Habashada waxyaalaha uu yiri mulaqaskooda markan soo aruuriyay waxa ugu horeeyay buu yiri muslimiinta xoolahooda waa in la dhacaa si ay u faqiiraan qofka faqiirka qofkii shilin si uu ilaa ka dhiganaya tacliinta waa in laga xirmaaniyaa quraanka waa in la baran luqad carabiyana waa in la baran masaajid waa in la dhisin madaaristana waa in la burburiyaa wixii dhisana waa in kaniisada lagu wareejiyo ama la jijabiyaa sida waa in la yeelaa magaalooyinka lagu sameeyay yani Eritrea oo ayadana eber laga dhigay iyo dhinac kastaba oo xagga ugu xiba harar iyo magaalo kale eber laga dhigo waxa lagu qiyaasaba la yiraahdo dadka lagu baabi'iyay oo ay dadka qaar ku sheegayaan 500 oo kun dad halka milyan bay ku dhadhaweynayaan sidaas ayaa loo gumaaday dadkii sidaa loo gumaaday oo islaamka lagu sheegay oo sidaa la yeelay dadka islaamka oo maanta jira ma dareemi karaan in muslimiinta dib ku dhacay bal waxa laga kari laayay rabbigiina inta ka baqataan oo midowdaan cadawgiina arka innamal mu'minuuna ikhwa faaslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun isuna xariisadinka ashiddaa'u 'ala al-kuffar ruhamaa bayna wala kari laayay bal iska dhaafina ayu iswaafaqaan qolaba xisbi bay la safanaysaa qolaba xisbi bay raacay qolaba xisbi حزب كريستان قال راعي حزب كلا قال راعي قال حزب غير راعيسا
سيدا مثالا ذلك أن كنا هناك كلام واحد للدنيا إن دين الله دنا يلي هذا لا إلا بعض إياه للدنيا إسلاميين تك إسلام كيكون لنا وحي الملك والله بحيث هذا كذا الراعيسة أي مركز اللي أنا جميل لا درنا وجرته أيها الأبي من كسر وهو روين عبود يدركان وهذا رب جيد عبود وهذا رب ضمير عبود بها كان كل شيء يعني سرقليات كريستو ولا دقيقتين سرقليات كريستو وحول لو قد دور يا مسلمين مستقبل كإسلام كويدين هذا كان إسلام بعد كذا لنكره مركز معناه دوام حد دولة دين وكريستان وحكلا أجرا ما جرا إسلامنا لما مقل كرو ده أنت اللي يساوي مركز هذا سرقليات كريستو دي ولا دقيقتين الله رياض ونسيس سلاسل يا قرنا سفرك وجرا مرك إلهنا لقى إسلام سبحانه وتعالى وردت كان قالوا عدويين عيني عدويين أن قرنوا وحول بأيوة الجيران أيها واحد اللي يسكت الإسلام كإلا عريريو قالوا يفسحانتها ولا كسوا يفسحان إسلامكم ما فسحنا يا بابي مسلميتي وكل وجدا وحيكون صوينيان لما كان يرادوا حرشة وكله وحول المها مسلميته وإن حب نصارى الله قدقا وإن رجع يضمر كمسلمين تلباب إياه قفك المؤرك علامة إسلامية محفل وين اللي ود له أيضا ضدك الله تصيو دولة أيو كهرين حيل ثلاثة يريد سومالي يكون كتريجين وحيد يجرين ساسا يكون يجرين دولة دي يريد الربان حكم كبير السعودان هي ومساكين ما يتكعن العرق فرعون وحوي لما تقعنا مركي وموسى ويمس يا فرعون وقال فرعون ذروني أقتل موسى ولقوا عن موسى دليل وليدعو رب أسنا ربي هو ناسد هو يرسل إني أخاف أن يبدل دينكم بل هو فرعون وعن إذا كبغانا إنه دين تبدله بل كوا روحك دين تإنه بدلنا كبغانا يا كوا قليل يوقات كم يراك حنايا سوالي ذا مركز هذا شيء كله دين تاني لك بدله يا بدعة نوتمت فرعون وماسو كير الدين بل بدله نكر رواية كير الدين ولا بدله يا مركز نكر رواية كذا بل وين كذا تقول دين ولا لك بدله يا ضد ما حنوي صباح أساسا خريب وي إني أخاف أن يبدل دينكم بوي ما حكسدر أو أن يدير في الأرض الفساد بوي بالفساد كفرعون كان كبر وامحه ما علمتم لكم من إله غيري هي يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري بل أكبر سحو ليه هي مركز ليه وحن كبر قالوا فينه فساديه نمن كان جبال تشرح وحن كان قدر الرئيس عن اسكو هيا كلاب عن ضل هيسنن ضد كدعي إلهي لو عدد معنا أي حد وحيلة تاجين كوا إخوانك وحليك الربيان دول كيف فسادين ينو مالي تقالي قبصدينه سلاس بيله قالوا أيكم يا هذا قال إلى أن تتضاهى ما كدعي مركا ما حدا قال الله إلى عليه من كذا تقول الله يا سلاس كوا هلا وواحد فرعون كوشة وسكوش يا شيطان كفرعون وحي ولا وحي ولا يه سجى جوا مركا تقول يا هاي مركا اللي يديك كده يعني قبيلك قبائل كده متكبلا بيسان كدرت دارن دونا waxa marka laga hadlo ayuga qoray ayuga sheegay ayuga yiri marka waxa sheegtid waxay ku leeyihiin ha taariikhna maxaa laga rabaa kida maxaa laga doonaya taariikhna haday dadihiin ma naga amsan away dadka ana u doodaya dadka Soomaalida hada dadkiin dad noqdo wax qabsada horta marka dad dhisan oo dawladda oo maamul iyo sharaf la noqotaan hada doonta islaamiinta baabiye wax arrin ku sameeya laakiin isma hal sana bismillaah inta asana daga qolo walba soo wada marka fiilay anaga la ka soo horjeeday islaamiinta meelaan ka marrabaana هاي ما إسلامي بقى هيستطيع قالك سواء كفر واحد أنا لا كسر جدا هرو قول واحد أنا لا كسر جدا أنت أصلا إنك عام مسلم هل عقب صلاة وإنك هل قريب بسرعة إنك كلابتنا منكم بآذنين ووحي فرعون كهاللي ما هو فرعون مركلي يريد أن يخرجكم من أرضكم بالسحر سحر كيس يروك إنك قبحي الدنيا مسلم فما لا تأمر ورمحل أمر إنسان وإنك أنت كدعيه ولي الموقت إنما وحوج عنك كوين أنت تدب